Runtii qisada buugga caanka ah ee Aabba Qani iyo Aabba Faqiir ah waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah buugaagta ugu waaweyn ee dhankaas iyo dhaqaalaha ka hadla, kaasoo qoraaga buuggan uu si buuxda u isbarbardhig ugu sameynayo laba aabbo uu leeyahay oo markaas kala ah aabba faqiir ah iyo aabba taajir ah. Mid waa aabba caqli badan oo aqoon iyo shahaado sare haysta, halka midka kale xitaa uusan dhammaysan galaaska siddeedaad. Labaduba waxay ahaayeen laba aabbo oo si fiican u shaqeeya, waxayna ahaayeen laba aabbo oo guul ka gaaray dhankaas iyo shaqooyinkooda, waxayna sidoo kale ahaayeen laba aabbo uu dakhli fiican uu soo galo. Laakiin aabbaha koowaad ee caqliga badan ee shahaadada doktoorada haysta wuxuu noloshiisa oo dhan ku soo qaatay si silac ah, halka midka kale uu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan gobolka Hawaii. Sidoo kale wuxuu ku yidhi qoraaga Robert Kiyosaki buuggiisa, markuu dhinto uu ka tago labada aabba mid ka mid ah adduunka, midkood wuxuu reerkiisa uga tagaa hanti ballaaran ay ka sii dhaxlaan, halka midka kale uu reerkiisa uga tago deymo badan oo laga rabay inuu bixiyo. Mid wuxuu reerkiisa kaga tagay hanti, halka midka kale uu reerkiisa kaga tagay deymo. Sidoo kale qoraaga wuxuu ku xusay buuggiisa in labada aabbaba ay ahaayeen laba aabbo oo aaminsanaa ahmiyadda ay leedahay waxbarashada, laakiin midkood wuxuu culayska uu saaray oo keliya dhankaas iyo waxbarashada maadiga ah, halka midka kale uu culayska saaray aqoonta nolosha oo lagu daray waxbarashada maadiga ah. Markii uu yaraa qoraaga labada aabbaba waxay ahaayeen laba aabbo oo dakhligoodu uu siman yahay, mana uusan ahayn wakhtigaas aabbaha taajirka ah mid taajir ah, mana uusan ahayn sidoo kale wakhtigaas aabbaha faqiirka ah mid faqiir ah. Dhanka kale wuxuu sheegay qoraaga inuu ku jahwareeray nasooxooyinka ay had iyo goor u soo jeediyaan labadiisa aabbe, laakiin uusan garanaynin xilligaas middii uu ku dabaqi lahaa noloshiisa, balse runtii farqigii u dhexeeya labadooda wuxuu ahaa mid iska cad. Tusaale ka soo qaad, midkood wuxuu qabaa in jacaylka loo qabo lacagta ay tahay isha koowaad ay xumaan oo dhan ay ka timaaddo, uuna qof walba iyo shirkad walba siday ku heli lahayd lacagta ay u samayn karto wax walba. Sidaas daraaddeed wuxuu qabaa in faqriga iyo gaajada iyo dhibaatooyinka kale ee dadka haysta ay sabab u yihiin dadka taajiriinta ah, halka aabbaha labaad uu qabo in lacag la'aanta iyo faqrigu ay sabab u yihiin dadka saboolka ah. Low aysan jiri lahayn dadka saboolka ah ma aysan jireen dilalka iyo dembiyada iyo wixii la midka ah. Sidoo kale labada aabba mid ka mid ah ayaa mar walba wuxuu adeegsadaa erayo ay ka mid yihiin ma awoodo, ma samayn karo, ma xaqiijin karo, iyo wakhti uma heli karo, halka midka kale mar kasta ay soo wajahdo dhibaato uu isweydiiyo su'aasha ah sideen ku sameeyaa, sideen ku xalliyaa, sideen u helaa iyo wixii la midka ah. Midkood wuxuu si toosa u xiray albaabka isagoonan haba yaraatee waxba ka fikirin, halka midka kale uu galay badweyn dhan oo fakir ah. Sidoo kale kala duwanaanshaha dhabta ee u dhexeeya labada aabbe waxaa ka mid ah in midkood markii uu la talinayo wiilkiisa uu ku dhaho, aabbe si fiican wax u baro si aad uga shaqaysid shirkad fiican, halka aabbaha labaad uu ku dhaho wiilkiisa, aabbe si fiican wax u baro si aad markaas aad u gadato shirkad weyn. Ereyga ugu quruxda badan uu aabbaha labaad adeegsado ayaa wuxuu yahay, inaan noqdo mid taajir ah waxaa u sabab ah carruurtayda iyo xaaskayga iyo weliba reerkayga, halka midka kale uu dhaho faqriga iyo saboolnimadu waxaa u sabab ah reerkayga iyo carruurtayda, sababtuna waa inaan iyaga masruufo had iyo goor iyo wakhti walba. Waana kuwaas fikradaha dhabta ee u dhexeeya aabbaha qaniga iyo aabbaha faqiirka ah. Wuxuu yidhi qoraaga in aabbaha faqiirka uu mar kasta ahaado mid faqiir ah waxaa u sabab ah waa habfikirkiisa iyo qaabka qaldan uu ula tacaamulo lacagta, halka aabbaha taajirka ay sabab u tahay taajirnimadiisa waa inuu u fikiray siday u fikiraan dadka taajiriinta ah, isagoo markaas lacagta ula tacaamula siday ula tacaamulaan dadka taajiriinta ah. Qofka saboolka ah wuxuu mar kasta isku dayaa inuu ka cararo xaqiiqada dhabta ah, isagoona dhaha oo isku qanciya lacagtu ma aha wax muhiim ah, iyadoo weliba ay lacagtu tahay shayga ugu horreeya uu markaas ka fikiro. Qoraaga buugga isagoo u jawaabaya qofkan wuxuu yidhi, oo haddii aysan ahayn lacagtu wax muhiim ah, maxay tahay sababta aad u shaqayso 8 saacadood oo ka mid ah maalinkaaga ilaa uu cimrigaagu ka gaaro 60 sannadood? Sidaas daraaddeed waa inaad beddeshaa fikirka qaldan aad ka haysato dhanka lacagta. Lacagtu waa shay dabiici ah, waxaadna xaq u leedahay inaad ka fikirto sidii aad ku kasban lahayd. Sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad noqoto qof taajir ah,
waxaadna xaq u leedahay inaad ku noolaato nolol wanaagsan adiga iyo reerkaaga. Wuxuu ka sheekeeyey Robert in maalin maalmaha ka mid ah isaga iyo saaxiibkiis Meg ay aadeen dhankaas iyo aabbaha Meg ee taajirka ah, yacni aabbaha taajirka ee Robert baray wax walba oo ku saabsan dhanka lacagta iyo taajirnimada, waxayna ka dalbadeen inuu baro habka iyo qaabka loo kasbado lacagta iyo hantida. Kadib wuxuu belimiyey inay u imaadaan maalinka Sabtida si uu markaas u baro. Dabcan waxayna u imaadeen maalinkii Sabtida, iyagoona markaasna ugu tagay qolka shirarka iyo kulamada. Ugu horeyntiina markii ay u soo galeen ayuu wuxuu ku yidhi, haye wiilashiinaan diyaar ma tihiin? Waxayna haa ku dhaheen si degdeg ah. Kadib wuxuu hadalkii u soo leexiyey dhankayga oo wuxuu igu yidhi, wuxuu ii sheegay wiilkayga Meg inaad rabto inaad barato sida loo kasbado lacagta sax. Waxaanu ku idhi waa sax. Kadibna labadoodii wuxuu ku yidhi waan idin bari doonaa sida loo kasbado lacagta, laakiin ma idin bari doono qaabka soo jireenka ah, kaasoo ah mid ku kooban oo keliya hadal iyo khudbooyin la soo jeediyo sida inta badan ka dhacdo iskuullada, balse waxaan wax idin bari doonaa qaab aad nolosha wax uga barataan. Laakiin si aan idin baro waxaa shardi ah inaad aniga ii shaqaysaan. Sidaas daraaddeed ama inaad aqbashaan heshiiskayga oo markaas idin baro waxaad rabtaan, iyo ama inuusan jirin wax heshiis ah oo aanan waxba idin barin. Kadib Robert oo yaaban ayaa wuxuu ku yidhi aabbihii taajirka ahaa, ma ku weydiin karaa mudane hal su'aal? Wuuna diiday aabbihii taajirka oo wuxuu ku yidhi, kan ayaa ah heshiiskayga, mana jirto wax su'aal ah. Haddii aadan baran sida looga faa'iidaysto fursadaha, ma baran doontid weligaa sida lagu noqdo qof taajir ah, sababtoo ah fursaddu waxay ku soo martaa mar qura. Haddii aadan ka faa'iidaysanna waa siday kuu dhaaftay fursaddaas. Haddaba haddii aad rabto inaad barato wax walba oo ku saabsan dhanka lacagta iyo hantida, tan waa fursaddaadii, ama inaad ka faa'iidaysato iyo ama inaad dayacdo fursaddaada. Sidaas ayaynu ku aqbaleen labadoodii heshiiskii, iyagoonan haba yaraatee ka keenin wax hadal ah. Intaas kadib aabbihii taajirka ayaa wuxuu ku yidhi, hagaag, hadda waxaad Marwo Martin u raaci doontaan goobta shaqada, waxaadna shaqayn doontaan maalin walba oo Sabti ah muddo 3 saacadood ah. Waxaana shaqadiina maalinkaas idinku siin doonaa oo keliya 30 senti oo lacag ah. Wuxuu yidhi Robert markii aan maqlay maalinta Sabtida, runtii kama helin warkaas oo waxaa caado ii ahayd maalintaas inaan kubad la ciyaaro saaxiibadeeda. Wuxuu isku dayay in laga beddelo maalintaas shaqada, balse runtii isagoo u jeeda ayaa waxaa hal mar isbeddelay wejigii aabbihii taajirka ahaa. Wuxuuna yidhi isagoo markaas ay ka muuqato xoogaa cara ah, kani waa heshiiskayga, ama inaad aqbasho iyo ama inaad diiddo, yacni ama inaad shaqayso iyo ama inaad aaddo ciyaartaada. Ugu dambayntiina Robert wuxuu aqbalay inuu shaqeeyo maalinta Sabtida. Runtii waxay maalmuhu socdaanba waxay bilaabeen shaqadoodii. Dabcan nooca shaqaduna waxay ahayd mid markaas iska fudud, oo waxay ahayd nadiifinta iyo isku habeynta alaabaha baqaarka. Wuxuu yidhi Robert mar allaale iyo markaan soo qaato 30 senti maalinta Sabtida, waxaan si toosa ugu iibsan jiray 3 sheeko oo sheekooyinka carruurta ah, anigoona calaa sheekadiiba ku iibsan jiray 10 senti oo lacag ah. Waxaana akhrinta sheekooyinkaas ku dhammayn jiray ka hor inta aysan soo galin Sabtida kale. 3 isbuuc aan ku waday xaaladda sidaas, marnaba ma dhicin inaan dib dambe u arko muddadaas Meg aabbihiis. Maalmihii ugu dambeeyey isbuucii 3aad ayuu wuxuu la kulmay Robert aabbihiisa dhabta oo wuxuu u sheegay sheekadii. Wuxuuna yidhi Robert aabbihiis, arrintani laguma tilmaami karo waxbaris, ee waa addoonsi uu idin addoonsanayo idinkoo carruur ah, isagoo markaasna idin siinaya mushaar aad iyo aad u yar. Kadibna wuxuu u sheegay inuu aado uu u ishtikoodo aabbihii taajirka, ama inuu wax idin baro siduu horey uu idinkaga ballanqaaday, iyo ama inuu idin siiyo mushaar intaas ka badan. Dabcan kaasna waa aabbaha faqriga uu Robert kaga hadlay buuggiisa. Haddaba inta uusan Robert u jihaysan dhankaas iyo aabbihii taajirka, ayuu wuxuu jeclaystay inuu aado dhankaas iyo saaxiibkiis Meg si uu markaas uga cawdo aabbihiis. Wuxuuna u sheegay inuu gebi ahaanba uu joojin doono shaqadaas. Kadib waxaa u jawaab celiyey saaxiibkiis Meg oo wuxuu ku yidhi, aabba wuxuu ii sheegay inaad maalin maalmaha ka mid a u imaan doonto isaga, kadibna aad u sheegi doonto isla hadalkii aad hadda ii sheegtay aniga. Intaas markii aad samaysay kadib, wuxuu aabba ii sheegay inuu kugu sugi doono maalinka Sabtida baqaarka.
Robert oo yaaban ayaa wuxuu ku yidhi saaxiibkiis Meg oo intaan oo dhan aan dhibtoonayna waad ogeed miyaa? Kadibna sabtidii xigtay labadoodiiba waxay aadeen dhankii aabbihii taajirka si ay markaas ula kulmaan. Isla durbadii ay soo galeen baqaarka ayay waxay arkeen aabbihii taajirka oo markaas ku hadlaya telefoon, ayagoona markaasna sugay 30 daqiiqo oo samir ah. Markii uu dhammaystay telefoonkiisii Meg aabbihiis ayuu wuxuu u furay albaabkii xafiiskiisa oo wuxuu ku yidhi soo gala. Aabbihii qaniga oo hadalka bilaabay ayaa wuxuu Robert ku yidhi, Robert waxaan maqlay ma runbaa inaad rabto inaan kuu kordhiyo mushaarka, haddii kale aad iska joojin doonto shaqada. Runtii maadaama uu Robert ahaa wiil yar oo 9 jir ah oo markaas dareemayay xoogaa yar oo caadifad ah, ayaa wuxuu bilaabay inuu iska ooyo oo wuxuu ku yidhi aabbihii taajirka, haa waa run, adiga waxaad naga ballanqaaday inaad waxna bari doonto, waxaadna ka baxday ballantaadii oo waxba nama barin. Dartaadana waxaan u joojiyey inaan asxaabteeda la ciyaaro kubadda, hal jeer xitaa kuma aynaan arag muddadii ugu dambaysay. Kadib aabbihii taajirka ayaa wuxuu si fiican u soo eegay Robert oo wuxuu ku yidhi, waan u jeedaa 1 bil wax ka yar inaad u fikirtay siday u fikiraan dadka shaqaalaha ah, ma xumid. Runtii Robert ma uusan fahmin ujeedka Meg aabbihiis oo wuxuu yidhi, mudane, aniga wax aad i bartay haba yaraatee ma jirto. Aabbihii taajirka ayaa wuxuu yidhi, laakiin waxaan wax kuu barayay si ay wax kuu barto noloshuna waxay wax kuu bari doontaa iyadoonan weligeed iyo allaheed marnaba kula hadli doonin, ee beddel aragtida aad ku aragto nolosha, igana dhaaf eedeynta tirada badan aad i eedeynayso. Markii ay ku soo wajahdo wax dhibaato ah, baro sida islamarkiiba loo helo xalka dhibaatada, haddana looga faa'iidaysto isla dhibaatada laftirkeeda. Taas ayaana 100% kaaga fiican inaad markaas eedeyso dadka kale. Mar labaad ma uusan fahmin Robert ujeeddadii Meg aabbihiis, wuxuuna yidhi aabbihii taajirka, oo hadda ma waxaad u aragtaa inaan aniga ahay dhibaatada oo idil? Okay, haddaba waxaad ii sheegtaa siduu kuula muuqda xalka. Wuxuuna yidhi Robert, ama inaad ii kordhiso mushaarkayga, iyo ama inaan iska casilo shaqadaada. Wuxuu ku jawaabay aabbihii taajirka, hadda ayaad noqotay mid u fikiray siday badi u fikiraan dadka kale, sababtoo ah badankoodu waxay ii imaadaan iyagoo ka cabanaya mushaar yaridooda, haddii aanan loo kordhinna waxay ka tagaan shaqooyinkooda iyagoo markaas raadiya shaqo kale oo cusub. Waxayna moodaan haddii ay helaan shaqo kale inay xalin karto dhibaatooyinkooda. Haddana haddii ay shaqeeyaan muddo sannad ah, sidoo kale haddana waxay ka cawdaan mushaar yaridooda, iyagoo markaas mar kale iska casila shaqadooda haddii aanan loo kordhin. Waana sidaas xaaladda dhabta ee maanta jirta. Kadib Robert ayaa wuxuu yidhi, oo hadda ma iga filaysaa inaan raalli ku noqdo mushaarkaas yarka ah, kadibna aan iska aamuso anigoonan waxba samaynin? Aabbihii taajirka ayaa ugu jawaabay, adeegso caqligaaga. Cashirkii aan ku barayay muddadii 4 usbuuc ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa in shaqada iyo mushaarku aysan weligood kaa dhigi doonin inaad noqoto mid taajir ah. Kadib aabbihii taajirka ayaa weydiiyey Robert siduu ahaa dareenkiisu markii uu u shaqaynayay iyo markii uu sugayay inuu u kordhiyo mushaarkiisa. Wuxuu yidhi Robert, runtii waxaan dareemayay dareen aad u xun. Mar walba aad doorato inaad cimrigaaga noqoto qof shaqaale ah, waxaad ogaataa inay sidaas oo kale ay dhici doonto. Xitaa haddii ay shaqadaas tahay mid uu mishaarkeedu badan yahay, weligeed ma aha mid kaa dhigi doonto mid taajir ah. Runtii hadda adiga waxaad tahay wiil yar oo 9 jir ah, waxaadna ogaatay inay waddadaas tahay waddada dhibka iyo rafaadka, halka maanta dadka intooda badan ay cimrigooda ku soo qaataan iyagoo aanan ogaanin xaqiiqada dhabta, ilaa mar dambe uu wakhtigu ka dhammaado. Intaas kadib aabbihii taajirka wuxuu yidhi oraahdiisii caanka ahayd, wuxuuna yidhi dadka taajiriinta ah uma shaqeeyaan lacagta daraaddeed, sidoo kale umana dhibtoodaan lacagta daraaddeed, balse lacagta laftirkeeda ayaa u shaqaysa iyaga. Kadibna aabbihii taajirka oo su'aal weydiinaya Robert ayaa wuxuu ku yidhi, haye Robert, hadda wax ma baratay? Wuxuuna ku jawaabay, haa mudane. Kadibna aabbihii taajirka ayaa ku yidhi, intaas iyo in ka badan ma ku baraa? Wuxuu ku yidhi, haa mudane. Kadibna aabbihii taajirka ayaa ku yidhi, hagaag, haddaba raalli ma ku tahay inaad iiga shaqayso baqaarka adigoonan wax mushaara qaadanin? Kadibna Robert wuxuu ku jawaabay, haa. Intaas kadib Robert oo ka sheekeynaya xaaladdaas wuxuu yidhi,
runtii markii hore waxaan ahaa mid ka cabanaya mushaar yarida, waxaana ka soo baxay meesha anigoo yaaban oo oggol inaan ku shaqeeyo mushaar la'aan, waxaana hadda isla wakhtigan ahay mid ku shaqeeya mushaar la'aan.